waxaan shaki ku jirin in aan maalin kasta qaadano dhowr go'aan. Ma jiro qof bini'aadan ah oo Ilaahay garaad iyo fikir u siiyey oo aan go'aan qaadanin. Xitaa qofka aan go'aan qaadanin wuxuu go'aan ku qaatay in uusan go'aan qaadan. Go'aan qaadashadu waa shay la socda oo aan looga maarmin nolosha bini'aadamka. Mar kasta oo ay ku soo wajahdo dhib, waxaad u baahan tahay inaad qaadato go'aan ku habboon si aad u xalliso dhibtaas. Go'aan qaadashadu waxay noqon kartaa laba midkood, amaseba go'aanku si guud wuxuu noqon karaa laba midkood. Go'aan iska caadi ah waa go'aan maalmeedkeena routiniga oo aan maalin kasta qaadano. Go'aanka labaad waa go'aanka ku saabsan qofka mustaqbalkiisa iyo noloshiisa dambe, guul ama guul darro mid ay ahaataba. Waa go'aanka la rabo qofka inuu aad iyo aad uga fikiro. Waa go'aan la rabo qofka in uu yaqaano uu macluumaad ku filan ka haysto shayga uu go'aan ku qaadanayo, yaqaanana natiijooyinka ka dhalanaya markuu go'aankan qaato kadib. Haddii aadan qaadan go'aan aad ku hagayso noloshaada qaabka aad adigu u doonayso, waxaad qaadatay go'aan ah in ay dad kale ku hagaan. Haddii aad doonto in aad samayso isbeddel dhab ah, waa inaad qaadataa go'aan adag, kuna dhaqantaa fulintiisa ficil ahaan si joogto ah ilaa aad ka gaarto yoolkaada. Waxaad ogaataa inaad qaadataa go'aan adag ama inaad qaadataa go'aan qaldan ma ahan dhib, waa faa'iido mustaqbalka. Maxaa yeelay qaladaadkeenna waxay hagaajiyaan go'aamadeenna. Ka guulayso ka baqitaanka go'aan qaadashada. Noloshaada bar la qabsiga go'aan qaadashada. Ogow, guushu waxay ka imaatay go'aano wanaagsan. Go'aamada wanaagsani waxay ka imaadeen tijaabooyin. Tijaabooyinku waa natiijooyin ka imaaday go'aamo qaldan. Qaladaadkaaga wax ka baro, ma ahan inaad ka shalayso. Ugu dambeyntii, si aad u qaadato go'aan adag, waa inaad yeelataa geesinimo iyo shakhsiyad adag. Waxaa jirto laba qodob ama laba shay oo muhiim ah oo lagama maarmaan u ah inta aadan ku dhaqaaqin fulinta go'aan aad qaadatay. Midka koowaad waa inaad samayso wax loo yaqaano la tashi. Waa inaad samaysaa la tashi dadka shayga aad go'aan ku qaadanaysid kaaga cilmiga badan oo khibradda u leh, sida waalidkaaga, asxaabtaada, iyo dadka kaaga cilmi badan oo khibradda u leh. Midda labaad waa inaad tala saarataa Ilaahaaga inuu ku asiibiyo arrintan iyo shayga aad doonaysid. Waxaad dukanaysaa 2 ragco, waxaa loo yaqaanaa istikhaara. Ilaahay ayaad ka baryaysaa inuu shayga aad doonayso u waafajiyo. Rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu dhahay: idaa hamma axadakum bil amri yuriidu an yafcalahu falyusalli ragcatayn min qayri alfariida. Qofkii hadduu himo gelinayo shay uu rabo inuu sameeyo, ha dukado 2 ragco oo aan ahayn kuwa waajibka. Ugu dambeyn, waxaan ku leeyahay, haddii aad ka labalabaynaysid go'aan aad rabtid inaad in badan qaadatid, waxaa la gaaray waqtigii aad qaadan lahayd. Waxaan ku leeyahay, haddii aad tahay qof ra'yi leh, noqo qof leh go'aan. Maxaa yeelay ra'yiga waxaa halleeya ka labalabaynta.